waxaa maanta magaalada Buuhooda lagu soo xiray tartanka Quraanka Kariimka oo uu socday ardayda dugsiga aqoon-kaab. Tartanka Quraanka Kariimka ayaa wuxuu 10 cisho Ramadaan u horeysay. Ugu horreynta waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka Handis iyo guddiga tartanka Quraanka qabatay. sidoo kale raxmaadkiisa khafaraadna insha Allah ta'ala linsi maanta halkan waxaanu fadhinaa xiritaankii musaabaqadii Quraanka ahayd ee soo bilownay Ramadaan bisha Ramadaan koodeedii maantana ay ku beegan tahay bisha Ramadaan 10 maanta ay khamiis tahay taariikhduna ay tahay 22 bishii afraad waafaqsan tahayna 10 Ramadaan 1442 sideen la soconayba ururka Handis wuxuu soo qaban qaabiyay musaabaqadii Quraanka Kariimka ee loo qabanay ardayda dugsiga aqoon-kaab afartiisa fasal ardaydaas oo tiradooda gaaraysa 22 arday hase ahaatee waxaa ka qayb galay 18 arday waxaana cudurdaar kaga maqnaa 4 arday Allah subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynayaa ardaydaas in Allah subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro iyaga waalidkoodba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddidii taxkiimka Sharaftah Fahfsa iyo Sawdaba oo iyaguna waqti badan insha Allah ta'ala ardayda ku bixiyay si ay u kala saar laayeen haddii quraanka tajwiidkooda noqoto haddii xifdigooda haddii qiraa'adooda noqoto si guud si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa kale macallimiinta quraanka soo bara macallimiinta mid walba macallinkiisa ano magaciisa ma sheegi karo laakiin inaan magaciisa sheegaa waxba la sheegmayso laakiin waxaan rajaynayaa macallimiintiina inagu soo tacabkeena soo galiyay iyo waalidkiina waqtigii juhdigiina soo galiyay inaan khasaarin sideen ognahay quraanku waa manhajul hayaa oo noloshan oo dhan waa shay ay ku sugan tahay Allah subhanahu wa ta'ala ana quraankiisa mar walba kaga hadlaya waana sheegaya kitaabkan inaga leeno soo dejiyay inaynu ku dhaqanno oo isku xukunno oo wuxuu inaga reebayna ka hadno wuxuu ina farayna raacno waxaan rajaynayaa kitaabka saad u xifdideen maanta waxa laga yaabaa qayb 5 juz bay ku gashay qayb 15 qayb 3 qayb 1 qayb 2 qayb 4 inaynu dadaalkeena sii wadno 30 juz ku gallo marka dambana aynu tafsiirkiisa aynu ku gallo musaabaqa tartana oo sida gobolada inagu xeeran imika waa la dhaafay tartan musaabaqa quraan oo qiraa'ada iyo tajwiidka iyo codka iyo ahsan sawt la iska eego waxay musaabaqadii tartankii quraanka ahaa barnaamijkaas oo ay soo abaabuleen ururka dhalinyarada ee Handis oo ambaarigaya ardayda ka qayb gashay maamulka dugsiga aqoon-kaab sidoo kale hogaamiyaha ururka Handis ku xigeenka dhamaantood waan mahadcelinayaa aadna waan u ducaynayaa kulli bishan sidaan wada ogsoonahay waa bishii quraanka la soo dejiyay maadaama ay tahay bishii quraanka la soo dejiyayna waxaa fiican in bisha dhamaanteed laga yeelo bil quraan maadaama ilaahay quraanka uu ku leeyahay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alquraanu hudan linnaasi wa bayinaatin min alhuda walfurqaan ilaahay quraanka ku leeyahay waxaa fiican nafteena iyo nafaha kalaba inaynu u dardaarano quraanku inuu yahay macnaheedu manhajul hayaa inuu yahay quraankani wuxuu yahay dadka uu ku hanuuninayaa macnaheedu jid kasta jidka ugu toosan buu ku hanuuninayaa quraankani ilaahay quraankiisa ku leeyahay in hada alquraana yahdi lillati hiya aqwam quraankani dadka wuxuu ku hanuuninayaa macnaheedu meel kasta meesha ka fiican tahay jidkii toobinka ahaa ee toosnaa ee qofku hadii oo dhamaado musaabaqadii quraanka isla markaana aan maanta bixinay jawaastii ardadii mutasta kaalmaha sare iyo ardadii waqtiga ku bixiyay ka qaybgalka tartanka quraanka arday walba martabadiisa ayaa lagu maamuusi doonaa insha Allah bidnillah aad ay mahadsan yihiin ardada sida wacan u saajiibeen waxaan leeyahay dadaalka barta ka sii wada insha Allah tartankan waa kii horeeyay laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa tartamaynta kan keenay majliskan iyo booskan aynu ku soo gabagabeynayno tartankii quraanka ahaa ee loo qabtay ardayda waxaana awalan iyo aakhiran mahadis kale Allah subhanahu wa ta'ala inoo suura galiyay inuu si habsamiya inoogu soo dhamaado oo inoogu soo gabagaboobo maantana aynu fadhino xiritaankiisii iyo dadkii mutaystay abaalmarinta iyo jawaa'ista in la siin doono jaayisooyinkooda waxaana kale oo mahad leh macallimiintii iyo mudarrisiintii ka soo qayb qaatay inuu heerkan soo gaadho oo uu noo soo gabagaboobo si wanaagsan inuu soo gabagaboobo aad baynu mahadsan yihiin macallimiinta idil iyo dadkii ka soo qayb qaatay tartankii quraanka ururku qabtay dhammaan waxaan u hambaleynayaa horta ardada ka wada qayb qaatay tartanka quraanka waxaan kaloo hambaliyo u dirayaa gaar ahaan ardadii
kaalmaha sii gashay dhammaantiin ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo dhammaan macallimiintii qabanaysay xafsa iyo cabdifitaax iyo sawdan iyagana ilaahay ajri xasanaad ka siiyo waxaan idinku leeyahay dadaalkiina halkaa ka sii wada dhammaantiin ardayeen qofowna ha ku joojinin maanta dad 5 jis ku gashay bari ku dadaasaad ku galaay 10 jis ka maalina sanad kadib ama bilga dhowr bilood kadibna inaad ku gasho 30 jis ee quraanka insha Allah rawaanteeda dhammaantiin waxaan idinku dardaarayaa inaad xifdidaan quraanka markaad yartahay xifdigaagu fudud yahay ka faa'iideyso qof walba intaad yartahay inaad si xifdido waxa xifdin karto inaad quraanka ugu yaraan haddaad iminka 5 jis xifdisaneed inaad mar walba suurada lagu soo dhigo ama macallin ku soo dhigo inaad intii ka hooseysay subax isku gasho ama aad diyaariso ama aad ka qabato